xilliyadii dambe sagaashameeyadii habeen kastoo sabtida laga bilaabo 1 saac ilaa 4 saac ayaa waxaa laga soo siideyn jiray London idaacadda 1096 FM. waxay ahayd xilliyadii ay bilowga ahayd idaacaddu waxaana idaacadda ku xirnaa dad aad u fara badan kuwaasoo habeen kasta oo sabtida ka dhageysan jiray muusig sidoo kalena faallo iyo wada sheekaysi. 30 bishii 1997 dhacdo aad u fulxun ayaa ka dhacday idaacadda taasoon wax markhaatiya lahayn kaliya tan waxaa loo dibraaci karo ay tahay idaacadda cajaladaheeda duubnaa. hal saac habeenimo markii la marayay sida dabiiciga idaacaddii ayaa la soo sii daayay iyadoo markaasi mid ka mid ah soo bandhigayaasha uu Java Maddox meesha uu kaligiis kaga tagay. waxay ahayd habeenkii ugu dambeysay oo uu qof arko Java oo nool. 90 daqiiqo ugu horeysay oo dhan waxa kaliya oo idaacadda ka shidnaa waxay ahayd muusiga ay soo sii daynayeen ilaa ugu dambeyn uu qof soo wacay qofkii ugu horeeyay caawa Java. soo wacaha isagoo xanaaqsan ayuu hadlay. fariinteedii way ku soo gaadhay, maxaad u akhrin laadahay? Java wuu la yaabanaa, fariin maxaya? wax fariina ima soo gaarin. Beenlow, ninkii ayaa yidhi isagoo caraysan, ma sidana ula dhaqantaa dadka kugu xiran? wax yar isug ayuu dhahay Java, balse intuusan hadlin waa la damiyey koolkii. Java xoogaa ayuu yaabanaa ilaa ugu dambeyn bilaabay inuu raali geliyo dadka dhageysanaya, wuxuuna u sheegay in isku diyaariyaan muusiga soo socda. xoogaa kadib wuxuu maqlay wax lagu jabiyey xafiiska idaacadda dhexdeeda. muusiga ayuu dib u shiday, wuxuuna u baxay inuu soo fiirsho. hal mar ayuu u yeeray, mar labaadna sidoo kale. markii loo jawaabi waayena nalka ayuu shiday, wuxuuna bilaabay inuu ku socdo hoolka isagoo u socda xafiiska. geeska ayuu ka leexday, wuxuuna bilaabay mar kale inuu u yeero. markii loo jawaabi waayena si dhaqso leh ayuu nalka u shiday, wuxuuna bilaabay inuu qolka fiirfiiriyo. Anna meesha ma joogin, balse waxaa meesha yaallay cajalado aad u fara badan kuwaasoo dhulka ku soo daatay. markii uu isdhahay qaadna kuwo kale ayaa dhulka markaas ku soo daatay isagoo uu markaasi wadna xanuun ku ridi gaaray. wuu qoslay kadibna wuxuu bilaabay inuu ururiyo, laakiin intuusan meesha ku celin ka hor wuxuu arkay warqad meesha ku jirtay asagoo aad ula yaabay sababtaa wuu hubay inaysan meesha ku jirin markii uu yimid. qolkii ayuu ku laabtay wuxuuna damiyey muusigii markii heesta sii dhammaan rabtay, wuxuuna u sheegay dadkii dhageysanayay in qofkii soo wacay uu run sheegayay sababtaa waxaa soo gaartay fariin. markii uu furay wuxuu arkay inaysan warqaddu lahayn adrees dib loogu celiyo, qadiimina ay tahay warqadda sida in gacanta lagu sameeyo oo kale sidii warqadii hore ee Jabaaneeska. wuxuu u sheegay dadkii dhageysanayay inay u egtahay in loo soo diray oo kale gabaygaasoo magaciisa yahay Tomino cadaabteedii. indhihiisa si degdeg ayay u kormareen, isla markiina wuxuu ogaaday inaysan ahayn gabay caadiya. wuxuu akhriyay leynka koowaad asagoo markaasi maqashiinaya dadka dhageysanaya sida ay u xun tahay. walaasha weyn dhiig ayay matagtaa, walaasha yartaana neefteedu waa dab, halka Tomino ee wanaagsaneed ee kaliyaad soo tufto dhagaxa qaaliga ah. wuu joojiyey kadibna wuxuu weydiiyey dadka dhageysanaya in hadday u baahan inuu sii akhriyo ay soo wacaan. hees ayuu u sii geeyey, intii ka dhibneed gabaygana asaga ayaa akhrisanayay. waxay ahayd mid labalaba ah oo aad u naxdin badan, xumaanteedana ay aad u daran tahay, balse wax ayaa ku qasbayay inuu sii wado. asagoo akhrinta sii wata ayuu wuxuu arkay taleefankiisa oo ifaya, wuuna ka soo jeestay, wuxuuna u malaynayay dadka dhageysanaya inay rabaan inuu sii akhriyo. dhowr wicitaan ayuu ka qabtay, mid walbana wuxuu markaasi ka baryay inuu sii wado dhammaan gabayga, dhammaantood aan ka ahayn hal mid, islaan codkeeda taasoo ooyeysay oo ka baryeysay inuusan sii wadin. waxay u sharaxday inuu gabayga ku jiro habaar Jabaanees oo qadiimiya kaasoo haddii kor loo akhriyo Java uu dhiman doono naftiisana ay cadaabta ku silci doonto. Java hadalkeedu ku qoslay, islaantiina hadda aad ayay u naxsaneed, waxayna uga digaysay waxa dhici doona, balse wuu ku qoslay. ugu dambeynna waa uu ku jaray koolkii. Java habeenkaas gabaygii oo dhan wuu akhriyay. wixii dhacay intaa kadibna qof sharixi karta ma jirin. saacad kadib dhacdooyin aad u xun oo isku xiran ayaa bilaabatay inay ka dhacdo London, balse lama hubin dadkaasi inay ahaayeen kuwa idaacadda dhageysan jiray in kale. dawladdu waxay sheegtay inay ahayd dhacdooyin kadis ah,
balse bilihii ku xigay dadka caamka ah waxay fahmi waayeen sida dad aad u fara badan oo kala duwan markaas ay u xanuunsan karaan, shilal geli karaan, qaarkoodna ay markaasi si aad u xun u dhiman karaan. Stationkii idaacadda laga soo sidayn jiray habeenkaa kadib waxba lagama soo sidayn. Java waxaa la helay isagoo miiskiisa ku fadhiya oo meyda, madaxiisa waxaa loo jaray si nadiif ah heer ilaa dhakhaatiirta maanta ay garan la'yihiin waxa loo isticmaalay. Gabaygii habeenkaas la akhriyay meesha lagama helin, gabi ahaanba wuu baaba'ay oo wax loo dibraaco ma jirin. Isbuuc kadib markii ay wax kasta kala degeen waxaa dib loo shiday idaacaddii, waxaana markaasi soo jeedin jiray ninkii ka horeeyay Java asagoo bilaabay inuu soo sidaayo 1 saac ilaa 4 saac. Hal maalinna ma uusan joojin inuu soo gudbiyo idaacadda isagoo xusay Java ugana akhrinaya duco ugu qorneyd buuggiisa, taasoo laga sameeyay warqad qadiimi ah oo Jabaaniis ah.